munaasabadan oo ka dhacday xeerada ciidamada badda Puntland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Boosaaso ayaa waxa ka soo qayb galay saraakiil ka tirsan ciidamada badda Puntland xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo marti sharaf kale cutubyo ka tirsan ciidamada oo si weyn uga dhex muuqday munaasabada ayaa dawladdu ku soo bandhigay xeerada ay munaasabadu ka dhacaysay iyagoo hanaanka gaada ka ciyaarka oo ahaa mid jaanta la isla helayay waxaana sidoo kale ciidamada cirka Puntland ay madasha ku soo bandhigeen dawladus ballaaran oo ay ku muujinayeen awoodda ciidamada cirka Puntland kuwaas oo diyaarado ka tirsan ciidamada Puntland ay hawada sare ee goobta ay munaasabada ka dhacaysay heebayay taliyaha ciidamada badda Puntland Cabdirasaaq Diriye Faarax oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in muddada ay shaqeynayeen ciidamada Puntland ay si weyn ula dagaalameen burcadbadeeda Soomaalida isla markaana ay ka howlgalaan deegaano ka tirsan Puntland waxaan la aasaasay 4 bishii Oktoobar 1999 sanadkii labaad marayno way caddahay runtii labadaas sano waxay ku jireen tababar ciidan oo kala duwan takhasus leh iyo hawlgallo laga soo bilaabay bishii lixaad oo ay fuliyeen ciidamada badda Puntland bariga Puntland waxaa kaloo jiray hawlgallo kale oo humanitarian sida raashin qaybin iyo dhaamis ilaahay soo gadabladayaan arrimo kale oo ku saabsan xagga mas'uuliyadda nabadgelyada xagga faystoyinkii Puntland ilaalintii shirkii Soomaaliyeed Garowan iyo Garow wasiir ku-xigeenka wasaaradda takadaha gaadiidka badda iyo la dagaalanka burcadbadeedka injineer Maxamed Ciise Laxle ayaa hambalyo u diray ciidamada badda Puntland oo ku hadlaya afka madaxweynaha Dr. Cabdiraxmaan afka xukuumadda afka dadweynaha iyo afka baarlamaanka dawladda Puntland waxaan halkan idinka soo gudbinayaa bogaadin iyo ammaan midaba oo aad mutaysateen saraakiisha ciidamada badda Puntland ayaa darajooyin la guddoonsiiyay goobta ay munaasabadu ka dhacaysay